guud ahaan hoos u dhac ballaaran ayaa waxaa laga dareemayaa heerka dhimashada dhallaanka iyo hooyooyinka kadib markii ismaamul goboleedyada gobolkani waqooyiga bari la soo dhaadhiciyay ay saamiyaadka ugu badnaa ay geliyeen wasaaradaha caafimaadka ee gobolkani shiray yare wasaaradda caafimaadka ee Garissa County ayaa waxay ka soo qaaday deegaanka Tokojo oo u jira in ka badan 100 kiiloomitir magaalada Garissa 8 xilli oo kala duwan ayaana ilmo ka soo noqday waxayna noqonaysaa markii ugu horeysay oo ubad ay dhashay indhaheeda ka qaado markii waan dhalay wiilka ilaahay si dadkii dhan way ku farxeen alxamdulillah ilaahay baa mahad u celin waxaan u celinayaa ramtaa sheeltan u celinayaa dhaqaatiirtii Garissa u celinayaa mahad dhaqaatiirtii badbaad ilaahay baa badbaaday dhaqaatiirtii u celinayaa mahad inikana mahad inay celin waa intooda badan haween Soomaaliyeed oo 20kii sano la soo dhaafay dhibaato ay ku haysatay dhalmada oo intooda badan carruurtooda ay hayeen kuwa soo noqonayay qoraaladan hadda aragtaan waxa ka muuqato qaabka hooyo walba ay ilmaha uga soo noqday shirad dareenkeeda mid la koobi kara maaha waxayna soo martay xaalado adag xaaladahaasi inta badanna waxay hayeen kuwa ku soo qabsaday dhulka hawdka waxaana ka warbixinaya Maxamed Cabdullaahi oo ah saygeeda ilaahay ma wax simba wax bixin karaa aan iska joognaa niyada ka helnay tiidama aad baa loogu rafaaday kol markii waxaan la qabatay wal maxaa iska shalayta ahaan si nacyaha looga taana bilcaan say aan qariib adu ilaa 5 saac indan nacyaha ba bilcaan tahay ama damay gabar bay ahayd meed ku soo inta waxay ahayd gadaalkeen bay ahayd gacmaha say saa u lahayd say bilcaan si ilaahay ama damay gabar nafbaxday markay nafbaxday ka soo dhacday alxamdulillah maanta ilaahay waa nagu guliyo waa ka dawad niga arkaysan haysata meeshan waxaan filanayni baan ugu imaanay sayga abshir ayaa waxa uu aaminsan yahay in xilligan la gaaray xilligii dadka gobolkani ku dhaqan ay ku wargelin lahaayeen saagooda in waxa caafimaadka xiriir kala duwan lala soo sameeyo xaaladaha noocan oo kala markay haweenkoodu qabtaan alxamdulillah meeshan si fiican u maanay wiilba alla nuus ilaahay aan ku maadanaynaa ummadda intan qalqaalisanay waa ku maadanaynaa waxa daliil u ah wiilkan anaga waana la wareysan markii meesha aan tagno sidoo ahaa iyo si ilaahay nagu siiyay si dadka ma joogo dadaalku ay waa geynina oo imaan san rajeeyay dad badan oo ciladan qabo waajira ilmaha ka soo noqdo hooyooyinka ayaa waxay ahayd mid ku badan gobolkan iyadoo inta badan aan la heli jirin tacaaliya waliba goobo rasmi ah dadka ay ka raacdaan daawooyin si joogto ah inay ku sugnaato xaruntan waxa loo dhisay in 9 bilood oo hooyadu uurka ay tahay inay ku sugnaato sidaas waxa VOA-da u sheegay Ahmed Dhaqane oo ah madaxa isbitaalka guud ee gobolkani dad badan ayaa fursadan ka faa'iideystay maamooyin badan oo dilan badan lahaan jiray ilaa 8 cunug ilaa ilmood ilaa 9 laga yaabo inay soo dilmeen ayaa ilmo kale u badbaada inkastoo tii rabbi ay meesha tahay haddana laakiin waxaa moodaa inay maadaama isbitaalka ay u soo dhawaadeen oo si fiican looga warhayo waxaa moodaa inay maaragtay ay ka faa'iideysteen baahida badan ee gobolkani ka jirtay caafimaadka ayaa waxay noqonaysaa in xaruntani ay noqoto mid soo daboosho boqolaal ayaa ku dhalay xaruntani kuna badbaadiya carruur fara badan oo dhibaatooyin fara badan ay ku qabeen xilliyada dhulka hawdka iyo duurka ay ku noolaayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa